kinetics dhaqaaqa walxaha kiimikeed ay dhaqaaqaan goorta falgalku ay sameynayaan maanta waxaan ka hadlaynaa cashar gaar ah kaasoo khuseeya isla jabtarka looga hadlayo xeerka falgalayaashu markay falgalku sameynayaan rate-ka ay isticmaalaan rate law iyo hawsha qaabkay u dhacdo mechanism reaction ayaan maanta daraaseynayna mechanism reaction soo u dhaca rate law ma jiraayo la isticmaalo oo ah cashirka afraad gabagabada cashirka ardaygu waa inuu fahansan yahay collision theory iyo mechanism reaction qaabka uu u dhaco waaya waxaan ku hormaraynaa marka law rate law muxuu yahay waa experimentally determined equation that express the rate of chemical reaction in the term of molecule concentration of reactants sida badan rate lawgu wuxuu khuseeyaa tijaabo oo abjuwaale ay la sameeyey kaasoo go'aaminaysa in la soo bandhigo chemical equation la soo bandhigo kadib rate of chemical reaction in the term molecular concentration of the reactant marka waxa la soo bandhigayo waxa waaye rate of chemical reactions qaabka reactantisku concentration ahaan ay ayagu isugu milmaan ayaana laga hadlayaa experimentiga marka maxaa lagu sameeyaa marka uu dhamaado observation ayaa lagu sameeyaa marka waxaa la qiimeynayaa experimentiga la sameeyey iyo qaabka u dhacay that the rate reaction is directly proportional to the concentration reactants at constant temperature waxaa la qiimeynayaa falgalkii nooca u dhacay markuu dhamaaday rate of chemical reaction ku lahaa directly proportional ma ku ahaa concentrationka markaasuu temperature uu ahaa constant temperature uu ahaa mid joogto ah oo reactantigii temperature isticmaalayeen iyo productigii la soo saaray temperature haystaan ma yahay mid same ah oo aan wali isbedelin each of the concentration walba ee ku jira falgalka falgalayaashu ay leeyihiin waxaa loo soo bandhigi ama la siin doonaa power ayaa la siin doonaa powerka la siinayo ma ahan mid mala awaala ama qiyaasa waxaa laga keeni doonaa experimentiga la sameeyey tijaabada kiimikeeda la sameeyey ayaa laga soo saari doonaa this power is known as order of the reaction powerkan waxaa loo yaqaanaa order of the reaction ayaa la yiraahdaa equationka guud ee la qaadanayo waxaa waa marka a capital a small a capital plus b small b capital equal product and small wuxuu taagan yahay coefficientiga horgalaha tusaale 1 2 3 4 5 shayga horgalo waa ayuu taagan yahay smallka capitalka wuxuu taagan yahay moleculeska shaygu wuxuu yahay shayga fargalay waxa uu yahay tusaale sodium chloride oo 2 ya fargalayso kale sodium tusaale sodium plus chlorine equal sodium chloride kan oo kale la sheegayo waxaa loo sheegayaa smallkaas loo sheegayaa waa marka rate lawga la isticmaalayo muxuu yahay marka waxaa la siin doonaa power ayaa la siin doonaa shayda falgalka sameynaya powerkan waxaan naana wuxuu ku xiran yahay experimentiga tiro ka imaanayso marka general formula waa kana powerada qaabka loo qaadaya qaab constant asagoo rate iyo asagoo constant ya wixii yihiin joogto x maxay u taagan tahay marka y waxay u taagan tahay x waxay u taagan tahay order reaction ka ee uu leeyahay falgalaha a y waxay u taagan tahay order reaction uu leeyahay falgalaha b k waxay u taagan tahay rate-ka guud ee constantiga ah ee labada dhinacba joogto ka ah rate constant muxuu yahay marka waxaa lagu cadeeyaa ama loo qeexaa inuu yahay specific rate ee reaction ah kaasoo molar concentration of reactants are taken to be united labada shay ee
falgalka sameynaya marka ay rabaan inay midoobaan rate ay ku midoobaan ayaa la yiraahdaa rate of constant rate constant labada shay ee falgalka sameynaysa shayga rate u ogolaanaya in labadooda ay isku milmaan ay isqabsadaan ayaa la yiraahdaa rate constant marka waxaan leenahay k waxay la micno tahay wadarta guud ay isku haystaan a iyo b order of reaction maxaa la yiraahdaa hadda order of reaction wax kale ma ahan experimentiga la sameeyay ee labada shay ee falgalku sameynayay experiment ahaan loo sameeyay in the rate equation ee lagu soo bandhigay equationka caadiga ama rate equationka for the rate law expression qaabka loo soo bandhigo ayaa la yiraahdaa experimentiga waxa ka yimaada experimentiga la sameeyay waxa ka yimaada qaabka loo soo bandhigo ayaa la yiraahdaa order of reaction and y tirada ay noqonayso iyo x tirada ay noqonayso waxay ku xirantahay experimentiga resultiga ka yimaada marka the x and y labadu waxaa loo yaqaanaa order reactions ayaa la isku yiraahdaa the sum of all exponents marka waxyaabaha powerka oo la isu geeyaa ee ku jira rate law expressionka is known as overall order of reaction markii la isu wada geeyo x-yada iyo y-ga meesha yaala gebi ahaan waxaa loo yaqaanaa overall order of reaction ayaa la yiraahdaa waxaan bilaabaynaa waxa la yiraahdo collision theory aragti la xiriirta collision waxaa la yiraahdaa sheeyo markay falgal sameynayaan waxa sheeyadan isku soo ururinaya ama isku keenaya in labada shay markay falgal sameynayso waxa qasaba in ayagu ay isku milmi karaan ama is qaadan karaan ay is urursan karaan haddii collisionka uu yiraahdo falgalka uu yaraan doonaa haddii collisionka uu ziyaadane falgalka uu ziyaadi doonaa tusaale markii neef oo kale buufin ayaa la aariyay marka buufinka la aariyeeyo ee la xiro neefta ku jirta buufinka qaabka isu gaari karta haddii pressure la saaro ee buufinka inta laga cadaadiyay ee laga riix inta laga riix oo kale hawadu waxay isu tagi doontaa qaybta ay isu tagi doontaa xagga ay hawada qaybta dhan waa la xiro tusaale pressure la saaro waa la xiray hawada xagga tagaysaa kullama hawada la isku riixo waxaa ziyaadi doona heerka collisionka qaabka isu gaari karto wuu ziyaadayaa laakiin solidisku sidaa ma aha liquidku way ku soo xigaan marka collision waxaa la yiraahdaa hab is urursiga falgalku shayooyinka ay sameynayaan ay isu gaari karaan markii collision laga hadlayo wuxuu leeyahay condition in collision uu dhaco xaaladaha ka dambeeya kow shayadu falgalka sameynayo mas collide inay noqdaan shay isku laalaaban kara is qaadan kara macnaha isku soo noqon kara is gaari kara labo shayada imaanaya ama falgalka sameynaya inay leeyihiin orientation oo reactants must align properly to break down and form bond in shayada falgalka sameynaya ay noqdaan shay kala hari kara ama shay isu imaan kara ee dabar dhisi kara in shay uu noqdo orientationka waxaan leenahay waa mid u ogolaanaya shayada falgalku sameynaya ee reactantiska in waxna ay dhisi karaan waxna ay dumi karaan falgalka dartiis marka falgalka dhacaya dartii in dabarna ay burburin karaan oo breakdown uu dhici karo ama forming bond ay sameyn karaan ee dabarra isu keeni karaan marka adi combination inuu dhici karo iyo decombination reaction labaduba energy waa loo baahan yahay ilaa shay hadduu falgal sameynayo waxaa qasabanaanay activation of energy in la helo in labada shay ee falgalka sameynaya ay helaan tamar dhaqaaq ay ku dhaqaaqaan ay falgalna ku sameeyaan energy waa base marka waxaan naanay collision marka uu rabo inuu dhaco meeqa loo baahan yahay saddex shay ayaa qasaba in collision la helo kow shay falgalka shayada sameyn ay noqdaan shay collide ah collide isu laalaaban kara is gaari kara haddii shayadu ay noqdaan labada shay aan is gaarayn falgal ma sameyn karaan marka laba shayadu waa ay noqdaan orientation oo aan naanay shayo abuuri kara dabar waxaa la yiraahdaa synthase reaction oo kale ee wax dhisi kara ama shayada falgalka sameyn inay noqdaan shayo burbur sameyn kara tusaale kan soo qaadano photosynthesis waxaa isticmaala plantiska photosynthesis maxaa loogu talagalay marka
waxa waaye waa building of nutrient sama cunno ayaa la dhisaa. Cunno markii la dhisaayo qaabkee loo dhisaa marka different molecules ayaa la isu keenaa dan waxaa laga dhigaa cunto laga dhigaa. Cunnada dhirtaa samaysa marka noolaha tusaale bini aadamka oo kale markuu cuntada uu cuno wuxuu sameeyaa wax la yiraahdo catabolism. Catabolism waxa marka waa breakdown in lagu sameeyo nutrientigi sama energy ayaa loo isticmaalayaa cunnadii hay just waa decomposition iyo combination reactions marka energy falgal walba ee dhacaya ee collision sameyn kara ama isumaan kara waxaa qasaba inuu helo activation energy ku dhaqaaqo energy tusaale adinka rabta inaad cunnada energy ka heshid waxaa qasaba in cunnada energy ku bixisid in cunnada energy aad ku bixisid ayaa qasaba gacantii ayaa cunnada ku cunaysaa gacantu maxay bixinaysaa energy ku shaqaysaa afkii wuu shaqaynayaa guusi way shaqaynayaan dheecana la soo deynaya ko maxaa bixinaysaa energy ayaa bixinaysaa energy-ga waxaa la yiraahdaa activation of energy kadib cunnada ayaa waxaad ka heli doontaa energy-ga ku bixisa mid ka badan marka energy-ga ku bixisay mid ka badan ayaa cunnada ka heli doontaa marka the basic requirement for reaction to occur that the reactant species atom or molecule must collide with each other in some way markii la rabo in shay'e ay falgal sameeyaan atomya ha noqdaan ama molecule ha noqdaan waa inay noqdaan shay'e collide sameyn kara isgaari kara muhiim ah in hal qaab ay falgal u sameeyaan some ways ay u sameyn karaan noocyo kala duwan kolba waxay ku xiran tahay modelka falgalka khuseeya displacement reaction miya combination miya double displacement miya sublimation ma dhici raba just waxaa laga rabaa nooc falgalka uu noqon la ogaado marka hada tusaale reaction-ka aan soo qaadano intan noocay isu gaari kara ayaan qiyaasaynaa shay'ada reactantiska kuwana marka inta mar ee possible ahaan ay kulmi karaan saddex oo kala qaadnay shay'ada falgalka sameynaya marka bluegan iyo guduudkan hal mar ayay kulmi karaan kan waa guduud laakiin reactantis fiiri kan saan u aadi karaa kanna saan u tegi karaa laba mar ayuu kulka dhici karaa marka kanna ma aqoon u dhici karaa maadaama laba ay kala yihiin kan intan waa aadi karaa intan wuu aadi karaa laba mar sama kanna intuu aadi karaa kanna wuu aadi karaa laba kale afar mar ayuu ku dhici karaa marka that's collision marka collision theory muxuu ogolaanayaa wuxuu na siinayaa annaga inaan xog badan ka helno waxa gaarka ah ee ka dhici kara falgalku markuu dhacayo ee la abuurayo newbornka sida hadda aan soo qaadanoo kale in shaygan possible ways kala duwan falgalka markuu dhaco product usoo saari karo collision theory-ga waa state kaasoo ogolaanaya in dhaqaaq speed oo shayga ama rate-ka chemicalka uu ziyaado asoo proportion ku ah tirada collision-ka ee u dhaxeeya reactantiska marka asagoo lid ku ah the more often reactant species collide the more often they combine with one another kullama waxyaabaha falgalka sameynaya ee collide noqdaan waa kullama ay la midoobi karaan shay'e kale marka macnaha ama ayagu isla midoobi karaan oo mid ka mid kale uu qabsan karo and the faster reaction rate falgalkan uu ziyaadi karo ama reaction rate-kan uu ziyaadi karo marka xaqiiqiyan only a small number of collision are effective collision tira yar ayaa waxa ay noqonaysaa in collision-kood uu noqdo mid effective ah effective collision-ka are those which result in a chemical reaction waa kuwa natiijo ahaan ka yimaada falgalka kiimikeed marka sawirka ayaa ku qoran buugga dan adiga qiime sida collision aan kusoo sheegnay marka aan ka hadlaynay waxyaabaha agentiska ee laga rabo oo requirementiska ama conditionska waxaa qayb ka wax la yiraahdo activation energy waxaa la yiraahdaa minimum amount of energy ee uu ku dhaqaaqi karo falgalka oo falgalka uu ku bilaaban karo marka initiation reaction energy ah ayaa waxaa la yiraahdaa activation energy horena waa kaga soo hadalna marka
tirada marka shayada falgalka sameynaya energy ku filan waxay ku xiran tahay temperature-ka ay haystaan shayada falgalka ayagana sameynaya marka haddii falgalayaashu do not have required activation energy when they collide they bounce of each other without reacting marka haddii lacala labada shay falgalaysa aysan haysan temperature fiican ama energy aysan haysan ma awoodaan inay isu tagaan falgalka wuxuu noqonayaa marka mid aan dhicin ayuu noqon doonaa xaalad kale waxaa jirta chemical reaction-ka loo baahan yahay waxaa la yiraahdaa orientation baa la yiraahdaa orientation-ku maxay ogolaanaysa marka waxaa la rabaa orientation ogolaanaysa in collusion uu noqdo mid effective marka collusion ka uu noqdo mid effective ama ha noqdo synthesis reaction ama ha noqdo breakdown reaction marka unless the reactant particularly have this orientation when they collide the collision will not be effective one haddii lacala labada shay falgalka sameynaysa aysan haysan orientation ha tusaale marka laba shay ayaa falgalaysa labada shayna ma aha laba shay la isu geyn karo ama midoobi kara ama wax soo saari kara ama wax burburin kara waxaasoo kale ma dhacayaan marka waa in labada shay la isu geynaya noqdaan qola result keeni karta ya result ha noqdo mid burbura ama ha noqdo mid dhisida mechanisms of reaction ayagana maxay yihiin waa qaybta ugu dambeysay ee casharkeena waxay ka hadlaysaa falgalkan ku dhacayo habka uu dhacayo steps uu falgalku marayo marka waa elementary steps that together make complete chemical reaction falgalkan kiimikeed markuu bilowdo toos buu dhamaanaa mase steps kala duwan uu soo maraa reactantiga iyo productiga waxa ka dhaxeeya ayaa aad looga hadlaa marka daraasaynta mechanism reaction-ka aaday muhiim noogu tahay sababta maxaa keen marka this knowledge often gives us insight to how to improve reaction waxayna siinaysaa inaan ogaano ama aan garanno habka falgalku ugu dhaqaaqo get better product una soo saaro product saxan or make reaction occur more rapidly ama falgalku uu ku dhaco qaab degdega marka waxaa noo ogolaanaya mechanism reaction-ka si kale haddii aan u dhahno many different reactions often have very similar reaction mechanism falgalayaal kala duwan ama qaab kala duwan oo falgala ayaa waxay u dhacaan qaab mechanism ahaan isu eg waxaa kala duwan falgalkii laakiin yildigaas ku mid ah yildiga ka imaanaya falgalka ayaa isku mid ah laakiin processka kala duwan tusaale adiga u socdo meel xaafada u socotaa xaafada waxay leedahay 6 jid oo laga galo jidka doonta ka soo gal muhiimadu waxa waa in xaafada u socoto sama marka mechanism reaction waxa weeyaan in yildi uu no same laakiin ways ay kala duwanaan karaan marka in this type of elementary steps that are common to many different chemical reactions allow to us make prediction about reactivity pattern of unknown compound qaybta falgalka noocaana ee aan ka hadlaynay mechanism reaction-ka wuxuu noo ogolaanayaa noocyo kala duwan ee chemical reaction ee kala duwan ayaa inaan ku sameyno prediction inaan qiyaasi karno ama aan saadaali karno annagoo ka hadlayno reactivity pattern shaxda falgalkooda u dhici karo asagoo ah unknown compound kama hayna annaga ma naqaano laakiin waxaan qiyaasaynaa ama aan saadaalinaynaa qaabka batanka ee shaxda oo reactivity shayga uu dhici karo si haddii falgalka qabyo waxay ka yihiin loo dhamaystiro marka example marka falgal ay sameeyeen nitrogen monoxide iyo oxygen ee lagu soo saaray nitride ayaa tusaale u soo qaadanay falgalkan would occur as a result of collision between two nitrogen monoxide falgalkan lagu soo saaray nitrogen dioxide-ka ama nitride-ka lagu soo saaray wuxuu dhex maray aan leenahay laba isku dhiso nitrogen monoxide iyo hal molecule ah oxygen ayuu dhex maray sidaa darteed marka mechanism-ka reaction-ka ee nitrogen dioxide-ka laga soo saaray overall-ka ayay ahayd laakiin originalkii loo noqday falgalka waxaa laga dareemayaa inay ku jirto nitrogen dioxide reaction inuu qayb ka yahay marka sidaa darteed mechanism reaction-ka
sidaa loo dhisayaa marka. Step 1 nitrogen monoxide ayaa lagu daray oxygen, waxaa soo baxay dinitrogen dioxide, then dinitrogen dioxide ayaa waxaa lagu daray haddana oxygen, waxaa soo baxay nitrogen dioxide. fiiri stepeska way kala duwan yihiin, laakiin maxaa islahaan doona marka overallka. Step 1 waxaan soo sheegnay inaan isticmaalay dinitrogen dioxide, isla step 1kii waxaan ku darnay oxygen molecule ayaa waxaan ku lamaaninay dinitrogen dioxide si aan usoo saarno nitrogen dioxide. marka overall equation ayaa wuxuu noo cadaynayaa marka isugeyn in laga sameeyey dhammaan labada step sida sawirkan ka muuqato. marka kow sida ayay ahayd ka ayuu noqday, kadib dinitrogen dioxide ayaan ku darnay oxygen, labadaa way isla bixeen. marka maxaa soo baxay nitrate ama nitrogen dioxide ayaa noo soo baxay. meeshaan oxygen ayaa ka maqan, inta ka maqan oxygen, buugga xagga oxygen ku dar. marka overallkan waxaa imaanayo nitrate ama nitrogen dioxide. exercise collision muxuu collision u dhacaa u dhexmaraa labada shay ee falgalka sameynaysa uu muhiim u yahay. collisionka waxtarka iyo muhiimada uu leeyahay sheeg. waxaa sharaxdaa energy reaction graph ahaan u sharax exothermic reaction in the term of collision theory. marka laga hadlayo collision theory-ga energy oo ah mid exothermic reaction qaab graph ah sharaxaad ugu samee. maxaa la yiraahdaa activation energy. laba factor waxaa sheegtaa oo keeni karta in collision uu dhaco, laba shay ay isu yimaadaan. if the two reactants collide, haddii laba shay ay isu timaado with energy lagu daray energy but no reaction occurred, laba shay ayaa la isku daray iyo energy, wax falgalna ma dhicin. sabab maxay tahay marka? adiga laga rabaa inaad sharaxaad fiican samayso. marka waxa falgalka u dhici waaye factors collision ku laabo dhammaan su'aalaha ku qoran chapter buug ku qoran ee looga hadlayo chapterka 6 ee buugga ka shaqee una gudbi macalinkaaga si laga hubiyo jawaabaha aad bixisay inay yihiin kuwa saxan iyo kuwa qaldan. ardayay cashirkeeni maanta kaasoo aan kaga hadlaynay law of rates iyo mechanism of chemical reaction. halka